wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shacaib Maxamed Muuse ayaa xafladda xilka ku wareejinay maayarka cusub waxa uu si ballaaran u amaanay agaasimaha waaxda qorsheynta dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiqani Nuux Ibrahim maayarkii hore magaalada Gabiley ahna wasiirka warshadaha Soomaaliland ayaa tooshka ku iftiimiyay ahmiyadda iyo horumarka uu dawladda hoose degmada Gabiley ka sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiqani Nuux Ibrahim isagoo sidoo kale tilmaamay in agaasimaha Cabdiqani Nuux Ibrahim oo shaqada qaranka oo ay ku yimiday imtixaan uu ku guuleystay taasina ay tahay habka iyo hanaanka maanta bulshada gobolka Gabiley ugu adeego si gaar ah agaasimayaasha waxaa dawladda hoose waxaan si gaar ah u ismaaciilaya horumarka iyo tababarada aanu ka gaarnay dhinaca joint program ama JPLG-ga hay'adaha la shaqeeya dawladda hoose dhammaantoodna mahad gaar ayaan u celinayaa Gabiley sanadka markii qiimaynta la sameeyay waxaanu keenay 93 pesos laga helay 90 pesos baanu keenay waxaana la fadawar ahaa Cabdiqani Nuux Ibrahim agaasima waaxda sidoo kale mas'uul ka tirsan hay'adaha aan dawliga ahayn ayaa ka maqraati kacay in agaasima Cabdiqani Nuux Ibrahim uu yahay baasha kaliya ee dawladda hoose degmada Gabiley ay ku duusho waxaan hay'adaha United Nations ka shaqeeya degmada Gabiley mashruuca joint program ka shaqeynaa waxaan u shaqeynaa muddo 2 sano ugu dambeysay ayaan ka hawlgalnay Gabiley iyo Cabdiqani waa qabaan inay yihiin labada baale ee uu ku tuuro maayarka degmadu ama u saamaxayada in ay kacdo waa labada baale ee suugaliyay ama mashiinka wada dawladda hoose ee aanu aad iyo u maacintaanahay program Cabdiqani agaasimaha qorsheynta dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa xafiiskiisa kor u qaadis iyo tayan xagga shaqaalaha dulbadba ka sameeyay waana eejiinka wareega ee minadlaha ah ee alaaba ka shaqeeya dawladda hoose ee degmada Gabiley isla markaana ay ku duusho dawladda hoose ee Gabiley aqoonyahankan daayarka ayaa sameeyay istiraatiijiyada iyo baleenada lagu kobcinayo adeegyada dhaqan-dhaqaale si bulshada gobolka looga hagabtiro baahiyaha ku qotoma nolosha waa shakhsi firfircoon oo saameyn ku yeeshay dadaalka loogu jiro dhamaystirka mashaariicda ay bixiyaan hay'adaha dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn waa mas'uul sumad u ah in la helay jiil cusub oo tabac iyo maareyn gelin kara hawlaha shaqo ee qaranka xilligii la magacaabay agaasimaha qorsheynta dawladda hoose degmada Gabiley waxaa soo baxay ifafaale ay ka muuqato in laga baxay mugdi fara badan oo agaasimka dawladda hoose ku salaysan in la helay shakhsi hoggaan u noqon kara la kulanka hay'adaha dawladda iyo sidoo kale hay'adaha dawladda hoose ka caawiya mashaariicda kala duwan waana darajo cusub oo durbadiiba la jaan qaaday hiigsiga iyo himilada shacabka gobolka Gabiley waa aqoonyahan aad ka dheehan karto karti iyo hufnaan uu leeyahay hawlihiisa shaqo وجعفر عول هريري شبكة ورقة Gabiley News Network مقالة Gabiley